maamulka waqooyi bari ayaa hanjabaad culus u jeediyay Puntland oo ay ku eedeeyeen faragelin kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal ay shaaciyeen jadwalka doorashooyinka qof iyo cod ah ee golaha deegaanka degmooyin ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo waqooyi bari oo guddigu sheegeen inay ka qabanayaan doorashada degmooyinka Laascaanood, Xudun, Taleex iyo Buuhoodle ayaa Puntland sheegtay inay dastuur ahaan ka tirsan yihiin. warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha waqooyi bari ayaa lagu sheegay inaysan u dulqaadan doonin xadgudubka iyo faragelinta mas'uuliyiinta ka soo jeeda Puntland ee caadaystay faragelinta deegaanada waqooyi bari. sidoo kale fal kasta oo xadgudub ku ah midnimada dhuleed, wadajir iyo danaha guud ee waqooyi bari. maamulka waqooyi bari ayaa xusay inuu adkeynayo ilaalinta dalisnimada, wada noolaanshaha iyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya bulshada ku dhaqan Puntland iyo waqooyi bari. waxayna ku baaqday in la dhowro xuduudaha maamul iyo soodimaha degmooyinka isla markaana laga fogaado tallaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda, wada noolaanshaha iyo xasiloonida deegaanada. wasaaradda arrimaha gudaha waqooyi bari ayaa carrabaabtay inay cadeynayso ilaalinta nabadda, sharciga iyo dalisnimadu inay yihiin mudnaanta koowaad ee waqooyi bari.